gudoomiye xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo saxaafadda la hadlay kadib markii murashaxiintu ay hadleen waxa uu muujiyay in shirku uu qabsoomi doono sidii loo qorsheeyay isla markaasina nidaamka wax loo maamulay uu yahay si waafaqsan xeerka xisbigooda. xubno ka mid ah musharaxiintii xisbiga kulmiye waxay maanta warbaahinta u sheegeen inaanay ka soo qayb galaynin shirka xisbiga ayagoo ku tilmaamay in shirka golaha dhexe inaanu ahayn shir golo dhexe inaanu ahayn shir sharci ah inuu yahay shir cid qurihi ay maamushay. marka ugu horeysa xisbiga kulmiye waxa uu leeyahay dastuurka kaliya ninna dastuur kale ma haysto iyaguna kaasay haystaan annaguna kaasaanu hayna waxa ayaan darro ah xubnaha iyo cidda taageersan iyo annakadan ayna eedaynayaan inaanan mar qura isku qabanin hal shay oo mabda'i ah oo siyaasiyiin ku kala duwanay waxay wax ka sheeganayaan waxa weeye waa xubnaha golaha dhexe la sawirayo waa caalamka oo dhan marka shir la tagayo waxa la qaataa ID card warqad aqoonsi qofka lagu aqoonsayaa inuu golaha dhexe maxaan ku dhahdayay yahay seminaarada yaryar baa la qabta ayaa la sameeyaa arrinka madaxweynuhu wuxuu saaray xubnaha systemkii way baadhay waxa la leeyahay wixii ay wax ku hubinayeen oo dhan waa nuugeyn waxa la leeyahay wixii oo dhan go'aan baa laga gaaray arrintu markay inta tahay waxay yiraahdeen madaxweynaha kuma kalsoonin waxay yiraahdeen guddidiina kuma kalsoonin waxay yiraahdeen xisbigiina kuma kalsoonin waxay yiraahdeen aqlabiyadii golaha dhaxan haysana deewar faraxsaween wuxuu yiri garaalay taqaanaa intaas isma qabato ana aqlabiyadii haystan ana shirkii diidan ana shirkii aan imanaynin ninka aqlabiyada haysta kalsooni buu leeyahay afku taagaya xabadku taagaya shirku imanaya deysagaaba isubo maxaan ku dhahdaabay aqlabiyadii baaba haysta arrintu marka waxaan doonaynaa annaku shirbeeleedna ma qabanayno ma hayno shir dadweynena ma hayno 400 xubnood oo golaha dhexe ayaa shirka golaha dhexe loo qabanaya waxa kale oo jira saaxiibaday waxay yiraahdeen gudoomiyihii xisbigu waana musharax xisbigiina isaga maamulaya qodobkaan idin sheegayna isagoo kali ah ayuu maxaan ku dhahday xaq siinayaan aniga iyo xogayaha gudoomiye waxaan ku niri gudoomiye mar hadaad musharax tahay kharagna aad tartamaysaan dareeniyo tuhuna meesha uu jiro xisbiguna kii ay kugula tartamayeen uu yahay waxaanu soo go'aansanay inaad annakana naga aqbasho xisbiga inaanad waxba ka maamulin inta shirka golaha dhexe uu qabsoomayo bad banaanka ka baxdo xafiiskan musabixi kama maamulo warqadna kama saxeexo awoodiisana annaka ka qaadnay xeer aanu kaga qaadnay ma jiro annaku halkan dad aanu soo ururinaynaana ma jirto dadina bixuu sacabeynayana meesha tagi maayo maba laga yaabaa iyagu farsamooyinka noocaas ah ay wadaan dad aanu inay bixibe heli lahayn inay iyagu raacinayaan marka la yiraahdo xisbigiina bixuu shaqeeya marka madaxweynuhu bixuu shaqeynaya marka la yiraahdo annagu inay bixaanu shaqeynayna annagu inay bixi xilkiisii baan ka qaaday mabaadii siyaasi ah oo aanu hadda isku haynaa ma jirto laakiin halka ay arrintu taagan tahay waxa weeye waxaan islahayn 215 baanu haysanaa 215 koodun baabaan u maamuli lahaa shirka u geyn lahaa dabadeed musharaxa guuleystay iyagu noqon lahaayeen waxa loo jiray baroortu orgiga ka weyn nuxurka meesha ku jira iyo arrinta meesha ku jira waxay u baahan tahay in hoos loogu daadago